madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne oo soo saaray waxa uu ku fidiyay cafis guud maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran xuska maalinta 18 May darteed. wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad xubintiisa 5aad markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 149aad markaan tixgeliyay warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta ee ku taariikhaysan 17 bisha May sanada 2020 madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku yiri wareegtadan markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka Soomaaliland ee ku taariikhaysan 17 bisha May sanada 2020 markaan la tashi la sameeyay hay'adaha ay khusayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu cafis u fidiyo xuska maalinta 18 May darteed maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 365 maxbuus. cafiskanina saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo raad ciqaabeedka ka dhalanaya dambiyada ay ku xukuman yihiin sida ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud waxaana cafiska fulinaya xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la raacayo liiska maxaabiista. wareegtada ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.